qof kasta oo dunida saaran waxa uu leeyahay rajo. dadka aan meel la gaadhin waa dadka aan rajooyinka lahayn. biyaha aad cabbaysa waxaad rajaynaysaa inaad ku noolaatid. haddaba si aad rajadaada ku gaadho waxaan halka kugu soo gudbinayaa 5 qodob oo kaa saacidi doona insha Allah si aad rajadaada ku gaadho. qodobka koowaad, isku xidh Allah. mar kasta oo aad talaabo qaadaysid isku xidh Allah, ilaahay isku xidh oo salaada tuko. wax kasta oo ilaahay kugu waajibiyeyna waa inaad sideeda u samaysaa. taasina waxay kaa saacidaysaa si aad rajooyinkaaga u gaadho adigoo mar kasta ilaahay baryaya. qodobka labaad, is-aamin. naftaada aamin. baro naftaada. waqti si aad naftaada ku baratid. baro waxaad ku fiican tahay, maxaadse ku xun tahay. taasina waxay kaa saacidaysaa si aad rajooyinkaaga ku gaadhi lahayd. qodobka saddexaad, samirka. waxaa jira dad ka hadha amba dadyoga qaar waxaa jira marka ay dhibaatooyin la kulmaan ka hadha rajooyinka ay lahaayeen amba hamiga ay lahaayeen, ugu dambayna ay ku soo gebagabeeyaan waan qaban kari waaye se waan fahmi waaye arrintaas. laakiin nabiyullaahi ayuub calayhi salaam cid ka samar badnayd may jirin. dhibaato walba wuu u samray. ubadkiisii, caafimaadkiisii, xoolihiisii iyo xaaskiisiiba way ka tegey. wax allaale iyo dad u dhowaa way ka tegeen. haddana ilaahay buu ugu mahadnaqay. bal eeg halkuu samirku ka taagnaa nabiyullaahi ayuub calayhi salaam, adiguna waxaad ugu samri weyday dhibaato yar oo ku soo martay. ku samir dhibaatada. dhibaatada joogi mayso, caafimaadkuna joogi maayo, nabaduba. qodobka afraad, tala ka qaado cidda gaadhay rajooyinka aad gaadhay. waayo waxay kaa kaafinaysaa siyaabaha aad rajooyinkaaga u gaadhi lahayd. hana qaadin waddooyinka ay qaadeen, sababtoo isku mid ma tihiin badde. xilliga iyo sidaad u qabanaysaba dhibaatada soo martay adiga ku soo mari maysa, mid ka duwan baa laga yaabaa. qodobka shanaad, isbeddel samee. beddel dhaqamada qaar kuwaasi oo aan faa'iido ku ahayn. haddii aad samayn lahayd mawaadiicda amba qodobadan xagga sare ku soo xusnay, mar hore ayaad gaadhi lahayd rajadaada. marka waa inaad nafsadaada ku kalibtaa inay qaban karto waxan, oo haddii aanay qaban ay ku guuldaraysanayso hamiga aad leedahay iyo rajada aad leedahay. waana inaad isku sheegtaa inaanad gaaraynin hamiga aad leedahay haddii aadan bedelin dhaqamada qaar. haddii aad leedahay shaqo amba hawl waqtiga badankiisu kaaga lumo si aanay kaa soo gelin faa'iido, beddel shaqada. caajiska iyo hadhowta ayaan qabanaya waa taa koowaad ee rajadaada dib u dhigi karta. miyaad maqashay qof caajislow ah ayaa hamigiisa gaadhay? والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.